السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال هانتي baa ku soo dhawaad wixii dalka idafaa caalamka soo gaaray iyo xaaladii u dambeeyay ka soo kordhay magaalada Kismaayo ilaa ay haatan isdaba taagan ciidamada Jubbaland oo si toos ah furinta hore ee dagaalka ayuna soo xiray ciidamada dowladda Soomaaliya ee haatan ku daabushay Raskamboni ciidamada Jubbaland ayaa si toos ah waxay u galeen heegan buuxa kuwaas oo ku aadan in aysan wax weerar gaadma ku soo qaadin ciidamada federaalka kale shirkii jaraa'id ee xalay qabteen golaha wasiirada oo ku aadan in Axmed Maxamed Salaan Axmed Madoobe lagu soo qabto doorashadii uu qabtayna ay ka dhigaan wax biikan dhibcaan ah ee ku aadan golihii u dambeeyay wasiirada iyagu dhexdooda ay kala shakisan yihiin kale rajaha Soomaaliya ayaa asaguna waxaa ku soo wajahday cabsi oo fudud dhanka iyo Jubbaland waxaa faraha ku galiyay ciidamada Raskamboni la keenay oo ayaguna ilaa haatan shakisan qaabka loo keenay iyo sababta loo keenay waxay ka dhawaajeen in Atmis ay meesha kula wareegayaan Atmis ayaa sidoo kale waxay u danjeeraan dhanka iyo xawmada Jubbaland kale taliye hore noojida Nisa Fadiyasi Daahir ayaa sidoo kale fariin buuxa u diray dowladda Soomaaliya kaasi oo ka dhawaajay in Axmed Maxamed Salaan Axmed Madoobe aan wax cabsi marna uusan ka baqin dhanka dowladda federaalka Axmed Maxamed Salaan oo ku sheegay inuu yahay kansarka Soomaaliya muddo bilood ka hor waraysi ku bixiyay dhanka iyo Daily Media hawshan ayaa weli soo taraysa dhanka kale in Jubbaland ayaa ayaguna waxay ka soo baxeen furniyo hore ee dagaalka ay ku jireen ciidamada argagixisada Al-Shabaab waxay soo bandhigeen furniyo hore dagaalka ayagoo say kala yimaadeen goobaha kala duwan kuna soo wajahan dhanka Raskamboni waxay hortaagan yihiin ciidamada federaalka Soomaaliya kuwaas oo ka cabsi qaba in weerar gaadmo soo qaadaan kale ciidamada federaalka Soomaaliya ayaa ayaguna waxa ay sheegeen in aysan wax ku aadan weerar Jubbaland ku qaadi doonin balse ay haatan hayaan arrinta ku aadan furmo hore ee dagaalka ay kala wareegayaan ciidamada Atmis ee dowladda Soomaaliya ay dhimatay kuna joogaan heshiis kadna oo igad Atmis ayaa ilaa haatan waxa ay sheegayaan inaysan weli meesha ka bixin balse raggan loo keenay hawl ka duwan hawsha Atmis kale dhigooda Jubbaland ayaa waxa ay ka dhawaajeen haddii ay soo qaadeen arrin ku aadan fargelin sheegan siyaasadda ku aadan Jubbaland ayaguna ay heegan u yihiin dhanka iyo dagaalada waxa ay ciidamada Soomaaliya ka dhawaajiyeen in markasta diyaar u yihiin inay ka hormaadaan Jubbaland iyo heegooda waxa ay ciidamada Jubbaland heegan waxa ka tagan yihiin ama fariin markasta u dirayaan dhanka iyo ciidamada kale ee Haram Ali Gorgor waxa ay sheegeen in Axmed Maxamed Salaan uu ku dhawaaqay xataa uu geeriyooday 5 sano ee soo xigta waxa ay sheegeen in Axmed Maxamed waxa ay ka dhawaaqeen ciidamada Jubbaland in haddii Axmed Madoobe xataa uu geeriyooday 5 sano soo guud ku jira oo halkaas ku hayn doono waxa sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya ilaa haatan ay taagan yihiin go'aankoodii ahaa in ay meesha kala wareegaan Atmis watay dowladda waxay ka soo kordha wararkii ugu dambeeyay Jubbaland oo la soo wadaagay doona fadlan haddii aad barnaamijka ku xiran tahay waad maasantahay aad ku xiran tahay saar wixii warar ee xigana halkan ay ka soo waad maasantahay dabashadaada